hot and horrifying conversation. Hot waa uu kulul yahay, horrifying waa cabsi conversation wada hadal oo kulul hadana cabsi hot and horrifying conversation wada hadal kulul oo cabsi between ka dhexeeyo boy wiil and girl iyo gabar. Lesson 24 cashirka 24aad. Boy wuxuu leeyahay you damsel ducishaadan, can you defend ma difaaci kartaa yourself nafsadaada from me aniga. You damsel ducishaadan, ereyga damsel wuxuu noqonayaa ducil gabdhaha yarka hadda soo baxayo kaleeto. You damsel ducishaadan, can you defend ma difaaci kartaa yourself nafsadaada from me aniga ma iga difaacan kartaa. Gaal waxay leedahay I don't do lama sameeyey conversation wada hadal with shoe shiners kuwa kabaha baalasho ama baalashlayaasha lama sameeyey. I don't do lama sameeyey a conversation wada hadal with shoe shiners baalashlayaasha lama sameeyey. Okay, boy wuxuu leeyahay stop jooji abusing cayda before ka hore I rape you intaanan ku kubsanin. Ereyga rape waa kubsi. Okay, wuxuu leeyahay stop jooji abusing cayda before ka hore I anigu rape you intaanan ku kubsanin. Rape you intaanan ku kubsanin in front of the learners ardayda hortooda. In front of the learners ardayda hortooda. Okay, gaal waxay leedahay only keliya amaan nin kan ayaa awoodaa rape inuu kubsado a woman nag. First marka hore are you a man adigu nin miyaa tahay. Are you a man adigu nin miyaa tahay. Only keliya amaan nin ayaa kan rape ee kubsan kara a woman of dumar ama naag kubsan karo. First marka hore are you a man adigu nin miyaa tahay. Okay, boy wuxuu leeyahay you want to cry waxaad doonaysaa ama aad rabtaa inaa oysid like sida a baby ilmo yariis oo kaleeto. You want waxaad doonaysaa to cry inaa oysid like a baby sida cunug yar oo kaleeto ee baby ah. If haddii I do aan sameeyo something bad wax xun haddii aan sameeyo. Okay, gaal maxay dhahay marka you are waxaa tahay a womanizer. You are waxaa tahay a womanizer. You are a womanizer. You are a womanizer waxaa tahay nimonaagees. You are a womanizer waxaa tahay nimonaagees. Womanizer waxaa la lahaa nimonaagees ayaa la lahaa. So marka waxay leedahay you are waxaa tahay a womanizer nimonaagees ayaa tahay. Micnaha qof oo dumar iyo rag wuxuu yahay aan kala garanayn. Raggii wuu ku jiraa dumarkiina wuu ku jiraa. Waa dhexdhexaad isaga dhan waa lagu wareersan yahay. So waxay leedahay you are waxaa tahay a womanizer nimonaagees ayaa tahay. Stop jooji intimidating cagajugleynta ama cabsigelinta jooji. Show me something wax i tus wax i tus nimonaagees ayaa tahay kulli waxba ma samayn kartid laakiinse waxay leedahay wax i tus ay leedahay. You are waxaa tahay a womanizer ay leedahay nimonaagees ayaa tahay. Stop jooji intimidating cagajugleynta jooji ay leedahay. Show me i tusi ay leedahay. Something wax i tus ay leedahay. cashirkan waxaa ugu talagalnay inaa erayaha meesha ku jiraan vocabularies aan ka faa'iidna ayaa ugu talagalnay. yaanan laga fiirinin dhanka xun yaanan laga fiirinin dhanka wanaagsan ha laga fiiriyo. Sida dumarka oo kaleeto inay dhahaan lama rabo. Macalinka wuxuu usoo gelinayaa cashir oo ka hadlaya in dumar iyo waxyaabo noocaas oo kaleeto la kubsado. Yacni vocabulary-gaas aan ka fiirinay dhanka wanaagga waxbarashada aan ka fiirino. Haddoo kaleeto ereyga rape ayaa meesha noogu xusan oo kubsi ah. Ereygaas oo kaleeto waa erey vocabulary. Haddaan maanta barano alxamdulillah berri waan u baxsanaynaa. Marka isku daya mar walba wax markii la qabanayo dhanka wanaagsan in laga fiiriyo oo aan laga fiirinin dhanka xun inaan laga fiirinin. Aad baa u mahadsantihiin daawashadiina dhegeysigiina.